Saddex nin ayaa waxay haayeen saddex nin oo wada shaqaysta oo magaalada ku wada jira. Saddexda ninba waxay ka shaqaysan jireen gaadhiga loo yaqaano gaadhi ximaarka. Mid kasta gaadhi ximaar ayuu lahaa. Habeenkii markay soo rawaxaana qolba u wada kiraysnaa oo kirada qolkaas ay lacagta isku dari jireen, saasay ku bixin jireen lacagta kirada. Saddexdaa nin waxay haayeen saddex nin oo aad iyo aad isu yaqaana, aad iyo aadna isu fahansan, way wada kaftami jireen, waana wada sheekaysan jireen. Haddaba waxa dhacday habeenada ka mid ah ayay sidii caadadu ahayd waxay yimaadeen qolkoodii siday u seexdaan goor habeenimaha. Kadib markii ay sii seexanayeen ayay xoogaa sheekaysteen, way iska caweeyeen. Mid ka mid ah ayaa isagoo la hadlaya labadii kale ayaa wuxuu ku yidhi, warniyow bal ka warrama haddii aan madaxweyne noqdo maxaan idin qabtaa? Run ahaantii labadii nin ee kale way la yaabeen, way ku dheeldheeleen oo waxay ku yidhaahdeen niyow hurdada ha naga qasin ee waynu seexanayna, waa goor dambe, berrina shaqa inoo taalla, aynu iska seexanay naga daa hadalka. Ninku waxa uu yidhi wax kasta way dhici karaane, bal ka warrama haddii aan madaxweyne noqdo, tusaale ahaan bal haddii ilaahayba uu iga dhigo madaxweyne. Mid wuxuu yidhi warniyow haddaad madaxweyne noqoto anagu waxaan kaa codsan lahaa beero fara badan inaad siiso, inaad guryo fara badan siiso, dumar fara badan aad siiso, dad fara badan oo aan adoonsadana inaad siiso ayaan jeclaan lahaa. Waxa uu ku yidhi aad iyo aad baad u mahadsan tahay, haddii ilaahay madaxweyne iga dhigana waan kuu hirgelin doonaa waxyaabahaad iga codsatay. Kii kale ayuu haddana ku yidhi war bal adigu ka waran haddii ay dhacdaba inaan madaxweyne noqdo. Kii kale isagoo dheeldheelaya ayuu soo toosay, wuxuu yidhi warniyow aniga haddii aad madaxweyne noqoto intaad xadhig ugu xidho magaalada dhexdeeda ijiid, iminkana naga seexo, hurdaan hayso oo waa goor dambe. Isagoo weliba u sii raaciyey hadallo aflagaadaa uu ku leeyahay isagoo gaadhi dameerla ayuu doonayaa inuu madaxweyne noqdo, uu qalbiga ku hayaa waar naga seexayaan lagula yaabin. Erayo meelka dhaca ayuu kula hadlay. Erayada uu ninkani ku hadlay ninkii aad iyo aad bay u damqeen. Isla habeenkiina waxa uu go'aansaday inuu noqdo madaxweynaha waddanka. Habeenkii muu seexan, subaxii markuu waagu baryayna salaadii hore dameerkiisii ayuu kaxeeyey iyo gaadhi ximaarkiisii buu kaxeeyey, kadibna wuu iibiyey. Waxaanuu ka iibsaday dhar ayuu ka iibsaday iyo waxyaabo kale. Kadibna waxa uu tegey meesha dadka askarta lagu qoro, waxa la qoray askari ayaa la qoray. Kadib markii la siiyey tababar aad iyo aad u heer sarreeya waxa uu noqday ninka askarta ugu akhlaaqda wanaagsan uguna hawlkarsan. Waxaana uu bilaabmay dallacsiintiisa iyo darajooyinku isugu xigeen. Jaranjaradii iyo xaqiijinta hadafkiisa ayuu toos u guda galay. Sannado dhowr markii ay dhaafeenna waxa uu ka mid noqday ilaaliyayaasha khaaska ah ee madaxweynaha. Kadibna madaxweynihiisa ayaa waxa uu ka dhigtay ilaaliyihiisa khaaska u ah. Muddo kadibna waxaa geeriyooday madaxweynihii waddankaasi. Madaxweynaha waxa uu lahaa wax carruura inan buu lahaa, inankaasu u dardaarmay inuu xilka ku wareejiyo. Waxaa kaloo dardaarmay ninkan ilaaliyaha u ahi inuu xaaskiisa iyo ilmihiisa yarba uu ka warhayo oo ilaaliyahooda khaaska u noqdo. Ilmaha yari waxa uu ahaa 8 jir. Waxaa gacanta ku qabtay ilmihii yaraa iyo xaaskii iyo reerkiiba ninkii dadaalayay ee dameerlaha ahaa. Kadib markii la arkay ninkan dadaalkiisa iyo raganimadiisa waxa la qoonteeyey oo xaaskii iyo ilmihii yaraba lagala tashaday ninkan inuu u qalmo madaxtinimada waddanka. Kadib ilmihii yaraa iyo xaaskiiba waxa u saxeen ninkani inuu noqon doono madaxweynaha. Kursigii madaxtinimadana si toos ah ayaa lagu fadhiisiyey. Intii uu madaxtinimada haystay waxa uu sameeyey fatuuxaad fara badan iyo furashooyin wadamo fara badan ayay ka guuleysteen. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu yidhi nimanka nooca iyo noocaasa ha la soo raadiyo, meesha joogaana ha la soo ogaado, ha layna keeno. Isagoo ula jeeda labadii nin ee berigii hore gaadhi ximaarka ay ka wada shaqaysan jireen, iyadoo weliba ka soo wareegtay muddo ugu yaraan 30 sano ah. Labadii nin waa la soo helay, waxaa lagu yidhi waxaa idin doonayaa madaxweynaha waddanka. Labadii nin aad iyo aad bay u cabsadeen, waxay yidhahdeen wax dambiya maanu samaynin, maxaana laga rabaa, maxaanu samaynay, raggayaga waxaanu nahay gaadhi ximaarleyaasha ah, wax la wax dhibaataanu geysanayna ma jirto. Balse waa lagu khasbay oo waxaa la yidhi madaxweynuhu waxa laga yaabaa inuu wax kale idin doonayo ee na soo raaca. Way soo raaceen labadii nin dadkii doonayay. Kadibna waxaa loo keenay madaxweynihii dalka. Waad qiyaasi kartaa qof 30 sano ka maqnaa oo nimco fara badana dhex galay inuu jawgiisu isbedelayo iyo muuqaalkiisu. Labadii nin way garan waayeen ninkii. Umana maleynayaan inuu yahay ninkii berigii dameerlaha ahaa ee saaxiibkooda ahaa. Kadib labadii nin wuu salaamay, wuxuu ku yidhi may garanaysaan.
labadii nin waxay ku yidhaahdeen waanu ku garanaynaa oo madaxweynaha waddanka ayaa tahay, waanaanu ku jecelahay, waanaanu ku qadarinaa. waxa uu yidhi ma xasuusataan waqtigii sidaa iyo sidaa ahaa nin idinla shaqaysan jiray oo gaari ximaar isaguna lahaan jiray? labadii nin waxay ugu jawaabeen haa waanu garanaynaa. waxaanu yidhi anigu ninkii ayaanahay saddexaad ee habeenkii arrinta noocaas idinkala hadlaayay. labadii nin mid aad iyo aad buu u naxay oo wuxuu xasuustay hadalku berigii ku hadlay, halka midkii kalena uu aad iyo aad u farxay isagoo xasuustay codsigiisii aadka u fiicnaa uu berigaa codsaday. waxaanu yidhi jawgiina waxaan ka dareemayaa inaad isbedesheen labadiinuba, laakiin labadiinuba ra'yigii berigii aan idin weydiiyey labadiinuba idinkoo aad iyo aad u mahadsan hal mar iigu soo celiya. kii koobaad waxa uu yidhi mudane berigaa waxaan kaa codsaday inaad beero fara badan, guryo fara badan, dumar fara badan iyo addoommo fara badan aad siiso oo ii shaqeeya. wuxuu yidhi codsigaa berigaad iga codsatay aad iyo aad baanu garanayaa, haddaanan ku fulinayaa, lacagteediina waan kugu wareejinayaa. kii kalena wuxuu ku yidhi adiguna bal ku soo celi hadalkaad berigii codsatay. ninkii wuxuu yidhi mudane maanta waxaan kaa codsanayaa inaad i cafido, waayo berigaasi wakhti hore hayay ahayd, maanta waa laga soo gudbay, wakhtigaana dhallinyar baynu ahayn. wuxuu yidhi waa laga yaabaa inaan kaa cafiyo, balse laakiin iigu soo celi oo dadka hortooda ka dhe. waxaa laga yaabaa inaan ku cafiyo. meesha ayu nooc dadkii oo dhan ayaa jooga, madaxdii, saraakiishii, wax alla wixii way joogaan. kadibna waxa uu yidhi mudane berigaa waxaan ku idhi intaad xadhig igu xidho magaalada dhexdeeda ijiid oo waa kaa beenaalihii igu dheh. waxa ugu yidhi wallaahi baan ku dhaartay sidii aad berigaa codsatay ayaa lagugu fulinayaa. dadkiiba wuxuu amar ku siiyey askartii ku hareereysnayd in ninkaa inta xadhig lagu xidho magaalada dhexdeeda la jiido. kadib ninkii waa la jiiday, magaaladana la dhex mariyey, waxaana la yidhi waa kaa beenaalihii. markii la jiiday in fara badan la jiidayey, maalidhan la jiiday ayaa la soo celiyey. labadii ninbaa way u yimaadeen. wuxuu ku yidhi haddaba abaalkiina baa idin sheegayaa, adigu waxaad iga codsatay waan ku siiyey oo khayraad ahaa, adiguna waxaad iga codsatay sidaas ayay ahaayeen. adigu niyadaadii dhistay, kan kalena niyadda ayuu iga jebiyey. kala soco bartaan ku leeyahay YouTube fadlan subscribe kusoo gaadhaan wax kasta oo aan soo geliyo bartaan.